nawadeynta iyo soo afjaridda xiisad muddo ka dhex taagneed beelo walaala oo wada dega deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud isla markaana uu socday dadaalo la isku soo dhaweynayo oo ay wadeen odayaal waxgarad iyo cilmaawdiinka deegaanka ayadana ugu dambeyntii lagu guuleystay in colaadaas la xaliyo wafdi odayaal iyo waxgarad isugu jira ayaa maanta u amabaxay deegaanka Xiraale kuwaas oo qayb ka guddiga dib u heshiisiinta muddooyinkan dambe ku hoolnaa sidii xal waara looga gaari lahaa dagaaladii ka dhacay halkaasi afayeenka guddiga nabadeynta deegaanka Xiraale Suldaan Xaamud Suldaan Aadan ayaa dawladda Soomaaliya ku amaanay doorka ay ka qaadatay caawinta iyo garab istaagga dadka ay waxyeelada ka soo gaartay dagaalka iyo sidii nabad waara looga gaari lahaa deegaanka ilaahay ka sokow aanu mahad celinayaa wasiir deeqa boqoldaan waxay ka qiimo badan tahay boqolaal raga intii dhacdadaasu dhacday habeenagama seexan subax walba waxay lahayd odayaashii maxaa helay maydaan tagayn hurdaday naga jafaysay laakiin amarkii baa noqday inaanu maanta baxno gudoomiyaha guddiga nabadeynta ugaas Faarax Sheekh Cabdi ayaa ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed inay kaalin weyn ka qaataan sidii loo xalin lahaa dagaaladii ka dhacay deegaanka loona baahan yahay sidii loo midoobi lahaa waxaan rabnaa meel kasta oo dadka arinta ay dhibayso ay khusayso dhammaan meel kasta ay joogaan insha Allah in la soo duceeyo arinta inuu Ilaahay nagu soo guuro ay nabad ku soo dhamaato annagoo Ilaahay idinkiis duca iyo khayr u soo dhaafno ayagoo waxaan ola tagna naga aqbala in lagu soo duceeyaan rabnaa insha Allah deeqa Yaasin Xaaji Yuusuf wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dib u heshiisiin waar laga hirgeliyo deegaanka Xiraale bariyahan oo dhan ayaan ka soo shaqeynaynay haddana ma aragtay dad badan ayaa jiray oo dhaawac ku soo noqday ayagana sidii wax loogu qaban lahaa waa ku wajahneen hawshan waxaa ka wada shaqeynayay oo gacan naga siiyay wasaaradda arrimaha gudaha oo facilitate gareysay bixitaankan ka xukuumad ahaana waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta ay noo suurtooday in gegida diyaaradaha aadan cadde ay ka baxaan 21 oday dhaqameed oo isugu jira dad waaweyn oo maaragtay culummo iyo oday dhaqameed intaba isugu jira si ay maaragtay dhibaatooyinkaas dhacay ay dib u heshiisiin raagta ay meesha ka keenaan waxaan Ilaahay uga baryeynaa in ma aragto kuwii ku guuleystay ay noqdaan dawladda Soomaaliya ayaa kaalin weyn ka qaadatay sidii xal buuxa looga gaari lahaa dagaalada ka dhacay deegaanka Xiraale wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa ugu mahad celisay cid walba oo gacan ka geysatay sida loo dhameyn lahaa dagaalada ka dhacay deegaanka Xiraale waxayna bogaadisay garab istaagga loo muujiyay iyo sagootinta loo sameeyay guddiga maanta u amabaxay deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud Abdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho